بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxay bilaabeen casharkeena ku saabsanaa stomatitis-ka oo ah mid kamid ah hadii jeer waxa weeye xanuunada ku dhaca xoolaha oo aynu dib soo eegaynay marka casharka minka waxa weeye clinical medicine oo casharkeena koobaad stomatitis-ku inta badan waxaan ku dhaca hadii jeer oo la koosaha ama waxa weeye cirridka hadii jeer xoolaha waxaana inta badan raaca waxa loo yaqaano gastritis ama xanuun ama caafimaad sidoo kale waxa la waxa loo yaqaan gingivitis oo ah hadii jeer waxa weeye cirid xanuunka waxyaalo badan baa hoos kareeyo ay kamid tahay tuumadu oo neefka ku dhacdo jug waxa kaloo hoos kareeya foreign body sida masaabir iyo waxyaalo kale neefka qaatay waxa kaloo hoos kareeya shaadkiiska neefkiisa oo fiiqan oo isagoo hadii jeer jeexo waxa kaloo jeexa hereditary system ama chemicalka afitaminoosiska ama hadii jeer waxa loo yaqaan vitamin la'aanta sababa bacterialka sababa viralka sababa mycotic infection sababa oo ah way xanuuno hadii jeer fangayga waxa kaloo ka kici kara secondary infectionska kuwa loo yaqaano sida ma garanaysaa mouth and food and mouth disease ama MFD ama xanuunka kale loo yaqaano hadii jeer waxa weeye rinderbeska ama hadii dadka ku leeyahay xanuunka kale loo yaqaano malignant catral fever xanuunadaasna waxa weeye waxay keeni karaan stomatitis-ka isagoo hadii jeer secondary waxa loo yaqaano secondary stomatitis. Okay, clinical clinicalkiisa markaynu eegno hadii jeer waxa lagu gartaa waxa weeye anorexia ama waxa weeye laga appetite waxa kaloo jira hadii jeer waxa weeye salivation-kiisa aad u fara badan oo neefku la dheer badan daadinayo maadaama dee waxa weeye ciridkii laawacanyay sidoo kale waxa weeye wuxuu sameeyay hadii jeer biofuel investigation waxa loo yaqaano ama waxa weeye isagoo neefku hada calaamin kala waaya oo hadii jeer waxa weeye calaamiska neefku ku adkaado haasoo keenaysa waxa weeye neefku muufiyo calidii jacalsan waayo marka dee neefka afkiisa kala qaadana waxaad arkaysaa membrane-kii mucosal hadii jeer waxa weeye isbedelay gaar ahaan markaynu xanuunada aynu soo sheegnay keena hadii jeer waxa weeye waxa loo yaqaano stomatitis-ka markaynu eegayno waxa weeye markaynu neefka afkiisa kala qaadno hadii jeer waxaynu kala arkaynaa arrimaha baynu arkaynaa matalan catral fever oo kale markaynu hadii jeer waxa weeye eegayno waxaynu arkaynaa ama malignant catral fever markaynu eegayno neefku hadii uu secondary infectious yahay secondary stomatitis yahay markaynu afka kala qaadno waxaynu kala arkaynaa waxyaalo loo yaqaano cirrhosis hadii jeer waxa weeye meeshooda waxa weeye aad u hadii jeer khidmantay oo cirrhosis hadii jeer waxa weeye markay meeshu caabuqoodu aad u khatarta noqdo fascicular bay marka qaarkoodna arki karnaa sidoo kale oo nabaro yaryara bobular ama bubular waxa loo yaqaano iyagu laftoodu waa nabaro marka nabarada u baahday jeer waxa weeye medical terminology-ka gaar loo isticmaalaa kuwa xaaladda marayaan. Okay, marka asalka noqdo ulcer-ka markuu noqdo hadii jeer ulcerative markuu gaadhay xaaladdu ay meel aan dawadiis waxa weeye aad u adag tahay gaadho waxa weeye hadii jeer waynu arki karnaa marka hadii jeer waxa loo yaqaanaa pseudo abscess baa loo yaqaanaa. Okay, diphtheric hadii jeer infectious lesions-ka markaynu hadii jeer afka markaynu neefka kala qaadno hadii diphtheric uu jiro hadii jeer waxa weeye ama xaaladdu uu ka kacay xanuunkaas diphtheric uu ka kacay waxa weeye swallowing neefka ku adkaanaya hadii jeerna waxa weeye respiratory system ama respiratory keeni karta marka dambe gaagariin bay isagoo noqdo hadii jeer meeshu ay noqoto oo ay noqoto hadii jeer acute localized inflammation of the soft tissue ay ku dhacaan oo waxa weeye ay xaaladdu aad u khatarto oo ay noqon kartaa stomatitis-ka oo hadii meesha lafteedu ay gaagariin ku dhacdo ama gangrene ay ku dhacdo ee stomatitis-ku uu weeye laakiin stomatitis-ka laftiisa doortoono uu leeyahay leebel kala duwan oo hadii jeer ka khatarsan waxa weeye midba uu xaalad maray. Okay, markaynu halkaa marno ayaa waxa weeye waxaynu kula sheegaynaa in waxa loo yaqaano mycotic hadii jeer disease-ka laftiisa inay stomatitis-ka keenaan oo arrimaha aynu eegayno waxa weeye hadii jeer ay kamid yihiin waxa weeye in allergic stomatitis marka loo dhici karo waxa weeye jirku markuu allergy ku dhacay waxyaalo gaara diido in stomatitis ku dhici karo ayaynu sheegi karnaa. calaamadaha kale lagu garan karo intaan ku soo sheegnay waxa sii raaca fetal order hadii jeer marka neefka la qaado waxa weeye urtiisa inay hadii jeer waxa weeye yahay dad jeclaysato. Okay, waxaad kala arki kartaa waxa weeye inta kale inta badan waxa weeye waxa loo yaqaano fever badan oo hadii jeer particular waxa weeye marka ay secondary hadii jeer stomatitis-ka ay marayno waxa jira waxaynu arkaynaa hadii jeer markaynu isticmaalo waxa weeye qalabka inuu neefka saaro aynu arkaynaa inay jirto waxa loo yaqaano hadii jeer xumad sare. treatment-iska markaynu eegno saddex waxyaalood baa inta badan muhiima inaynu eegno hadii jeer aynu xasuusnaano mid waxa weeye oo qayb dhaymaha ah oo hadii jeer meesha aynu u samayno
qaybina waxa weeye inaynu isticmaalo hadii jeer waxa loo yaqaano kuwa hadii jeer yareeya salivationka ama secretionska iyo waxyaalaha waxa weeye mineralka neefka ka daadanaya iyo qaar hadii jeer antibiotic oo waxa weeye xanuun la dagaalamihii oo intii de meesha aynu ku qalajino sidaa daraadeed waxa weeye kuwaasi waa muhiim waxaa soo raaci kara waxa weeye qaybta afraad oo iyadoo ah waxaa loo yaqaano supportive therapy ama hadii jeer sida waxa weeye dextrose inaynu siino waxyaalo kale oo waxa weeye neefka waxa weeye kusoo celiya waxyaalihii hadii jeer waxa weeye fluidski neefka waayay okay marka waxa aynu hadii jeer qori karnaa waxa weeye waxa loo yaqaano inagoo isticmaalo waxa weeye qolan gential pilots waxa loo yaqaano oo afka lagu mayro oo cavities hadii jeer lagu mayro 3 jeer maalintiiba oo antiseptic sidoo kale iodine baynu isticmaali karnaa okay markay xaaladdu ulcerative tahay meel khatar ay marayso iodine baynu isticmaali karnaa hadii jeer waxa weeye inagoo ulcerka waxa weeye leefta meesha lafteeda taabanayna intaynu gloves ka gashano hadii jeer waxa weeye 3 times a day baynu maalintii waxa weeye ku mayri karnaa sidoo kale waxa weeye iodine waxa weeye concentration-keedu 3.5 baynu isticmaali karnaa ilaa 10 waxa weeye markay xaaladdu hadii jeer diphtheria stomatitis ay yihiin okay marka kuwaasi waxa weeye waa dressing waa mouth washing hadii jeer inta la isticmaalayno oo waxa weeye dawooyin kala duwan dawooyinku hadii jeer kolba tii ku available ka u bada isticmaalaysa adiga ama economically waxa weeye ay ku saamaxaysa atropine sulfate kan isticmaali karnaa hadii jeer waxa weeye aynu neefka ku yiraynaa waxa weeye gaar ahaan waxa weeye 3 to 5 cc waa markaynu ka hadlayno waxa weeye hadii jeer waxa weeye big animals ka cattle oo kale laakiin xoolaha kale de waa la mid waxa weeye adiga un hadii jeer qiyaasiya oo body weight hadii jeer ku xisaabtamaynaa okay marka waxa weeye inta badan waxaan ku xisaabtamaynaa hadii jeer waxa weeye neefka markay cattle-kii horoska oo kale tahay waxa weeye waxaan siinaynaa atropine sulfate oo ah weeye 3 to 5 cc oo waxaan ka siinaynaa sub cutaneous ama waxaan ka siinaynaa IM oo ah waxa weeye intramuscular ama IV ayaan ka siinaynaa xaaladda hadii jeer halkan ka siinaysaa waxa ku lantay neefka kulli situation uu ku jiro laakiin inta badan waxa weeye waxaan ka siinaynaa waxa loo yaqaano IV-ga hadii jeer iyo waxaan leeyahay intramuscular-ka ama subcutaneous okay penicillin and streptomycin okay oo la isku daro loo yaqaano hadii jeer streptomycin baa inta badan iyadoo waxa weeye lacag inay effective tahay oo neefka la siiyo ama waxa weeye hadii jeer de waxa weeye dawadii kale waxa weeye markaa waxa weeye hadii jeer waxa weeye u doorto de waxa weeye aad hayso in ay tahay hadii jeer mid effective adigoo de ama ka aqrisanaya manual iyo waxa weeye producer-ka ama waxa weeye dhaqaatiir gaara iyo waxa weeye cilmi medical raacaya oo hadii jeer dawada markaynu qorayno de waxaynu ku xisaabtanaa hadii jeer waxa weeye inay tahay dawadii saxda ahayd taasna markaa waynu qoraynaa penicillin waxaynu qoraynaa waxaan leenahay penicillin kaasaynu qoraynaa waxa weeye 1 milligram baynu 25 kg neefkaada siino marka waxa weeye dee neefkii ariga ahaa waxa weeye at least imka markaad eegto waxa weeye dee waaba hal waxa weeye milliliter okay dee saas umaynu neefkii kale big animalskiina u xisaabinaynaa waxa weeye 25 kilogramba 1 ml baynu siinaynaa de maxaa ku diiday inaad intramuscular-ka ka siiso hadii jeer waxa weeye once daily or 3 times okay waxa weeye hal maalin waxa weeye 3 ilaa 5 cashaad u wadaysaa waxa weeye kooraskaas waxa weeye marka oo maalintiiba de waxa weeye aad sidaas qiyaasta ugu samaynayso dextrose-ka ayaa isaga laftiisa iyo waxyaalaha kale infusioniska aba iyaduna supportive therapy aynu siin karnaa oo waxa weeye 1 liters ama 5% waxa weeye concentration-keedu yahay marka inta badan saasaynu samaynaynaa okay important notice-ka waxyaalo kale tambiih waxa weeye ku siraaci kara waxa weeye lagu xasuusinaya waxa weeye ku qaado hadii jeer syringes aan leedahay lahayn waxa weeye leefka midowii waxaad afka ku maydhayso hadii jeer afka waxa weeye si wanaagsan uga baray gare neefkana si cunto badan weyn cunto waxa weeye hadii jeer waxa loo yaqaan leguminous forages ama cunto hadii jeer jilicsan oo aan dabbaynin sida bersiinka hadii jeer ayaad waxa weeye siinaysaa oo maxay easily digested food ayaa hadii jeer siinaysaa neefkii maadaama cunto waxa weeye ka cabanayo oo afkii bararo dee balqay dee waa waxa weeye hadii jeer waa dhibaato inaad waxa weeye siiso hadii jeer waxa weeye shay kale waxa weeye neefkiisii qafilaya okay marka inta badan hawshaasaynu samaynaynaa okay waxaynu kaloo samaynaynaa waxa loo yaqaano banana mash oo ma garanaysaa rice soup isolated disease animalska in case of infectious disease laftiisa waxa weeye waa in neefka dee xoolaha ka saarnaayo dee inta aanu xoolaha kale qaadsiinay laftooda waa inay ka saarnaa meal hadii jeer antiseptic can be used oo inagii sheegnay waxa weeye
waxyaala antisalga la isticmaali karaa kala duwan marka waxa weeye kuwa laftooda waa la isticmaali karaa sida boric acid-ka iyo 5% alam waterka iyo concentrate iyo kuwa kale lamid ah fungicide-ka iyo hadii kuwaas oo dhan waa lamid xitaa waxaad isticmaali kartaa waxa loo yaqaano fengarka waxa loo yaqaano fengar oo waxa weeye hadii jeer waa bahalka khalka oo kale okay baa 2% of permanganate baa isticmaali kartaa inta badan marka ay xaaladdu tahay ay fungal u keeno marka xaaladdu inta badan waxa weeye loogu samaysaa inta badan aad iyo aad baan marka waxa weeye salaamaya boqol hadii ay keli ku leeyihiin waxa weeye 2 potassium permanganate inta badan waxa weeye number of fungal disease oo waxa weeye ugu horeeyay hadii ay keli ku leeyihiin ayaa isaga saas kale isticmaalay marka intan dambe way iska important in loo tiiso hawiye intii hore ayaa lagu ka laakiin afartaa shay ee muhiimka ah waxa weeye definition-ka course-ka hadii dedicate clinical science-ka iyo treatment-ka intaas waa muhiim weyn inuu standard-ka inta badan ku socono important hadii treatment-iskuna waxa weeye waa wixii kale ee muhiima ee ku raaci kara ee lagu kaabayo treatment-ka iyo qaabka aad u samaynayso marka intaas ay waxa weeye usoo gabagabeynaa insha Allah waxa weeye marka aad iyo aad baan idin salaamay